ninkii shalay ka shaqaynayay kafeteeriyada dugsiga oo weel dhaqayay maalinta xigtay wuxuu dugsiga ku yimid isagoo wado gaari aad u qaali ah. markuu arkay indhaha xaasidnimada ka buuxa ee dadka oo dhan ayuu ugu dambayn kartay inuu dhab ahaan noqday nin maalqabeen ah. laakiin sababta arrintan oo dhan ka dambaysay waxay ku laabanaysaa maalin ka hor ninku weli wuxuu ahaa arday sabool ah, waxbarashadiisana wuxuu ku bixin jiray isagoo cunto u adeegaya arday kasta oo soo iibsada. laakiin daqiiqad gudaheed wuxuu helay wicitaan ka yimid aabihiis kaas oo si toos ah ugu sheegay inuu guursaday haweeneyda ugu taajirsan magaalada. ninku wuxuu yeeshay 4 walaalo waaweyn oo aad u maalqabeen ah. walaashiis labaad xitaa waxay ku soo socotay dugsigii hore si ay u kaxayso, waxayna ku tiri ha iska joojiyo shaqada hadda oo ha guriga yimaado. markuu tan maqlay ninku wuu istaagay isagoo naxdin la yaaban. laakiin intuusan falcelin aabihiis ayaa taleefanka iska jaray. ninku wuxuu u qaatay in aabihiis uu kaftamayo ama riyo ku jiro, isagoo ku dhow inuu shaqada ku laabto. saaxiibtiis ayaa hortiisa ka soo muuqatay. markuu arkay wuxuu isla markiiba soo bixiyey hadiyadda uu u diyaariyey saacad elektaroonik ah oo uu ku iibsaday dhammaan mushaharkiisii. intuusan hadalka dhammayn, Blake oo ahaa wiil maalqabeen ah oo daba joogay gabadha ayaa hortooda yimid. wuxuu bilaabay inuu ninka eebeeyo isagoo hadiyadiisa ku tilmaamay qashin jaban. kadib wuxuu soo bixiyey hadiyadiisa isaga saacad farsamo ah oo aad u qaali ah. gabadhu waxay eegatay ninka dhinaceeda taagnaa, dabadeed si degdeg ah ayay u aqbashay hadiyadda Blake. waxay isla markiiba la kala tagtay ninkii iyadoo ku tiri inuusan mar dambe dhibin. waxay ku dhawaaqday inay hadda tahay saaxiibta Blake iyagoo weli ninka ku jeesjeesaya. cod lama filaan ah ayaa soo dhex galay. waxay ahayd walaashiis labaad. kulankoodii ugu horreeyeyba waxay siisay saacad farsamo ah oo aad u qaali ah. qof walba oo meesha joogay uu yaabay, hadalna waa ka wada go'ay. ma ay rumaysan karin in ninkan uu leeyahay asal sidan u weyn. isla markiiba saaxiibtii hore ayaa ku eegtay iyaga iyadoo qoomamo ka muuqato, balse walaasha labaad ayaa si adag ugu amartay inay meesha ka baxdo. kadib ninku wuxuu la raacay walaashiis guriga. markuu arkay guriga raaxada leh ee hortiisa yaalla wuu argagaxay. ma uu rumaysan karin in aabihiis runtii guursaday haweeney maalqabeen ah. intuusan weli fahmin, hooyadii cusub ayaa soo bixisay kaar bangi iyadoo leh lacag hadiyad ahaan loogu diyaariyey. markuu eegay kaarka gacantiisa ku jira wuxuu is yiri waa riyo. laakiin ka hor intuusan wax falcelin ah samayn, gabadha ugu weyn ee hooyadii cusub ayaa hortiisa timid. iyadu waxay ahayd gudoomiyaha dugsigiisa. waxay si cad uga hor timid guurka waalidkood iyadoo aaminsan in ninka iyo aabihiis ay keliya lacagta doonayaan. markuu tan maqlay, ninku si degdeg ah ayuu kaarka u celiyey isagoo ka baqaya inuu burburiyo guurka aabihiis. si kastaba qalbigiisa hoose wuxuu islahaa haddii aan aniguna taajir ahaan lahaa. isla markiiba indhihiisa waxaa ka iftiimay iftiin guduudan. markuu miyirsaday wuxuu ogaaday inuu helay awood cusub oo uu wax ku arki karo gudaha, xitaa mustaqbalkana wax ka arki karo. wuxuu arkay in walaashiis weyn mustaqbalka dharbaaxi doonto. markay aragtay sida uu eegayo, waxay u qaadatay inuu si aan habboonayn u fiirinayo, iyadoo xanaaqsan ayayna u soo dhaqaaqday. ninku oo tijaabinayay awooddiisa cusub wuxuu si dabiici ah u qabtay gacanteeda sida uu horay u arkay. halkaas ayuu ku gartay inuusan keliya wax arki karin, balse uu sidoo kale mustaqbalka ogaan karo. walaashii weyneyd markaas ma rabin muran dambe. waxay soo bixisay kaar bangi kale, waxayna ku tiri ha burburiyo guurka waalidkood. ninku isla markiiba wuu diiday isagoo sheegay inuusan marnaba faragelin doonin xiriirkooda. isagoo hadal sii wadi rabay, indhihiisu mar kale ayay gubteen. wuxuu arkay muuqaal muujinaya mashruuc dhisme oo dugsiga ah oo dab qabsanaya, taasoo keeni doonta khasaare shaqo oo walaashiis ku dhacaya. si uu u badbaadiyo wuxuu u sheegay wixii uu arkay, balse way rumaysan weyday, xitaa way ku eedaysay. walaasha labaad ayaa markaas dejisay, waxayna u sheegtay in hooyadood qabanayso kulan isbarasho, isla markaana lagu siin doono gaari raaxo ah. wuxuu ku wadi lahaa dugsiga maalinta xigta. maalintii xigtay walaashii weyneyd waxay tagtay goobtii dhismaha. markay aragtay qiiq madow oo ka baxaya, waxay isla markiiba amartay in qof walba la daadgureeyo. markii ay xaqiijisay inaan qofna waxba gaarin, way nasatay. dhanka kale, ninku wuxuu dugsiga yimid isagoo wata gaarigiisii cusub. indhaha xaasidnimada leh ee dadka ayuu arkay, wuxuuna si hoose u yiri dadku si fudud ayay isu beddelaan. intuusan sii fikirin, saaxiibtiisii hore ayaa gacanta ka qabatay iyadoo raaligelin bixinaysa kana codsanaysa inay dib u midoobaan. ninku si degan ayuu ula dhaqmay, wuxuuna ku yiri wuu cafiyey, balse gaarigu ma ahan mid uu si joogto ah u leeyahay, welina waa inuu shaqeeyaa si uu waxbarashada u bixiyo. wuxuu weydiiyey inay la soconayso. wuxuu geeyey kafeteeriyada. sida la filayay, gabadhii markiiba way iska sii daysay gacantiisa iyadoo tiri waa inay ka fikirto xiriirkooda. markay aragtay Jack oo soo muuqday, waxay isla markiiba u carartay iyadoo ninka ku eedaysay inuu dhibayay. xitaa saaxiibada Jack ayaa ku biiray eedaynta. ninku wuxuu madaxa ruxay oo keliya. kadibna wuxuu soo bixiyey furaha gaarigiisa, wuxuuna furay albaabka. markaas ayay gabadhii u timid iyadoo weydiisay in gaarigu dhab ahaantii yahay kiisa. markuu xaqiijiyey, qoomamo ayaa ku dhacday. laakiin Jack wuu diiday inuu rumaysto, isagoo ku andacooday in gaarigu yahay mid la kiraystay. ninku wuu qoslay si degan, mana uu doonayn muran dambe. markuu baxayay, Jack ayaa joojiyey isagoo dalbanaya caddayn. isla daqiiqadaas, laba haweeney oo qurux badan ayaa hortooda ka soo muuqday.